kulan wacan daawadayaal halkan waa Cabdullaahi Yar official muuqaal cajiib ayaan idin wadnaa haddaba ku soo dhawaada muuqaalkani muxuu yahay fanaanada caanka ee reer Hargeysa ee baryahan dambe muuqaaladeeda baraha bulshada isqabsadeen kadib markii ay iyadoo sawir kula jirta ay ka soo muuqatay baraha bulshada fanaanka caan baxay ee Bashiir Hanuuniye ayaa in muddo ahba waxa uu ku noolaa wadamada qurbaha balse kadib markii uu soo digirugtay in uu dib ugu soo laabto gudaha dalka Soomaaliya fanaanadani oo safar kala duwan ku bixinaysay qaaradda Afrika gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Addis Ababa, Hargeysa iyo Muqdisho ayaa waxaana si kedis ah ku soo shaac-baxday in fanaanka caanka ee Bashiir Hanuuniye durbaba ay isguursadeen taasi oo lagu shaacinayo baraha bulshada haddaba fanaanadan caanka ee Najma Nashaad oo dadka u garan og yihiin xidigtii Hargeysa ee dhawaanahanba sawiradeedii ka muuqanayeen baraha bulshada ayaana la ogeyn sababta keentay in ay muuqaal markaasi cusub ay la soo gasho fanaanka Bashiir Hanuuniye kaasi oo la ogeyn xaajigeedii hore ee fanaanna ahaa isla markaana Hargeysa ka soo jeeday halkii ay ku kala tageen ama markaasi lagu furay fanaanadani oo wax war ahaan arintaasi ku saabsan aan weli bixin ayaa baraha bulshada waxa isdhaxmaraya warar xan suuqeeda oo ku saabsan in Bashiir Hanuuniye in muddo ay isqabaan isla markaana iminka ayba u leedahay uur yar haddaba arintani ayaa la ogeyn sidoo kale fanaaniin caan ah oo qurbaha ka yimid oo ay qayb ka tahay Ikraan Caraale oo dhawaantan soo wada show markaasi hore loo sii shaaciyay 2 bisha July lagu qaban doono gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga soo muuqan doonaan si lamaana Bashiir Hanuuniye iyo Najma Nashaad daawada hadduu muuqaalkan ku soo gaaro fadlan subscribe dheh like tana saar siina share garee si muuqaalka saaxiibadaada uu gaaro waad ku mahadsan tahay adigana daawanaya wixii fikriya afkaar qaybta hoose ee commentiga inoogu soo qor waana ku akhrin doonaa waad ku mahadsan tahay